dhib ma lahan sida aad u mood inaad tahay mid aan qiimo lahayn, balse waxaa jira ugu yaraan hal qof oo u malaynaya inaad tahay qof cajiib ah. Mararka qaar ma dooran karno in aan ku faraxno hadal weliba, laakiin waxaan dooran karnaa dhegaysigooda. Dadku waxay yidhaahdaan raadso dad fiican oo ka tag kuwa xun, laakiin waa inay noqotaa ereygaas ka dhex raadi wanaagga dadka dhexdooda, xumaantan iska diid. Balse xusuusnow, ma jiro dunida ruux dhammaystiran. Had iyo jeer dhegayso wadnahaaga wuxuu ku yaalaa dhanka bidix, laakiin mar waliba hadalkiisu waa sax. Haddii aadan weligaa isku dayin, weligaa ma ogaan doontid. Maalin waliba oo cusub waxay bixisaa waxyaabo cusub, halkaasna waxaan ka abuuri karnaa xusuusyo cusub. Ma jiro wax aan suurtagal ahayn. Ereyga xitaa ayaa leh suurtagal ayaan ahay. Halumin noloshaada adigoo isku dayaya in aad ka yaabiso dadka kale, balse sameey wax aad jeceshahay, jeclowna waxa aad samaynaysid. Marnaba ma ogaan kartid waxa mustaqbalka kuu noqon doono. Taasina waxaa loo yaqaanaa qadar. Aragtidaada ha noqoto mid wanaagsan. Aragti aan ficil lahayn waa riyo maalmeed. Howl aan aragti lahayn waa qarow. Ogsoonow, ibni aadanka waqtigooda ugu wanaagsan waa marka ay samaynayaan waxa ay inta badan jecel yihiin. Waqtigooda ugu xunna waa marka ay bilaa camal yihiin. Inta lagugu jeclaan lahaa wax aadan ahayn, waxaa habboon in lagugu naco waxaad tahay. Ha ka qoomamayn dadkaaga tagay qabiyo, sababtoo ah waxaad ogaan doontaa mustaqbalka in aysan kuu qalmin insha Allah.